السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مرك هوري مقعيقو صدحان waxaa la dhahaa Khadar Xasan Nuur baa la dhahdaa waxaan ahay chairmanka ama gudoomiyaha ururka maraakiibta Somaliland sidoo kalena waxaan gaar u maamulaa xafiis la dhaahdo ama shirkad la dhaahdo CMA CGM oo maxay ahayd qaybteeda markaa Somaliland waxaanan halkan u imi in aan macluumaad yar oo kooban idinka siiyo shimileyniska iyo maraakiibtu qaabka u shaqeeyaan marka hore waxaan jecelahay markaa in aan hordhac yar idinka siiyo shirkadayada marka kambanigayga marka hore magaciisa waxaa la dhahdaa CMA CGM marka kolley inamada maamulka business card yaan idinku dhiibay halkaasaa shirkadda magaceeda iyo contact detailskooda oo dhani uu ku qoran yahay insha allah halkaasaa ka arki doontaan marka CMA CGM waxa weeyaan waa shirkadaha ugu waaweyn dunida marka laga hadlayo maraakiibta qaada containerada ama shirkadaha leh maxay maraakiibta containerska marka ugu yaraan waxaan nahay shirkadda labaad caalamka oo dhan marka laga hadlayo shirkaddana waxaa iska leh ama laga leeyahay waddanka Faransiiska marka in ka badan 196 waddan ee xarumo ku leedahay shirkadaas shaqada ugu muhiimsan ee shirkadahan aanu qabano ama shimileynisku ay qabtaan waxa weeyaan inay isku xidhaan ganacsatada caalamka daafiisa kala duwan ku sugan tusaale markaan bixiyo iminka anaga xafiiskayga shirkaddu ay ku leedahay Somaliland branchkay Somaliland ku leedahay shaqada ugu muhiimsan oo qabanaa waxa weeyaan inaan ganacsatada Somaliland ku xidhno ganacsatada kale caalamka meel kasta joogaan marka waxaan u fududeynaa in ganacsatada caalamka ay wax ka dalban karaan oo wax ka iibsan karaan ganacsatada reer Somaliland soo kalena ganacsatada reer Somaliland waxaan u fududeynaa iyaguna ganacsatada caalamka inay si fudud ay wax uga iibsan karaan marka macluumaad yar oo kooban idin siiyo ama su'aasha inaan isweydiino maxaynu xog ka haynaa waddanka ugu badan ee Somaliland ganacsiga ugu badan oo dhex mara waa waddankee ama ganacsadana waddankeeba ganacsiga ugu badan kala soo degaan waxaan doonayaa inaan idin sheego afarta waddan ee ganacsiga ugu faraha badan leh Somaliland ay la leedahay si aad fikir uga qaadataan haddaad doonaysaan dibadda inaad wax ka dalbataan meelaha ay tahay inaad focus ka saartaan insha allah marka waddanka ugu badan ee ganacsatada reer Somaliland waxay ka soo iibsadaan waa waddanka India waxa ugu badan ee ka yimaadaan waa food stuff way marka food stuff markaan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa waa sonkortii waa bariiskii waa daqiiqdii waana waxyaabaha ugu badan ee ay ganacsatada waddanka keenaan weeyeen waddanka kaalinta labaad ku jiraan waxa weeyaan waddanka China oo isagana China waxay nooga yimaadaa alaabo fara badan oo ay ka mid tahay waxyaabaha electronicska iyo furniture-ka maryaha kabaha waxyaabo kala duwan baa isagana laga keenay kaalinta saddexaad oo ku jira ay ganacsatada Somaliland xeer ganacsi la leedahay waxa weeyaan waa waddanka la yiraahdo Turkiga weey oo Turkiga isaga inta ugu badan waxa ka yimaada baastooyinka ayaa ugu badan kule dumarku way garanayaan oo dhergii kaag dhow yihiin baastooyinka ugu badan Turkiga laga keenaa waxa kaloo Turkiga inooga yimaada bariisada qaarkood baa ka yimaada walow aanay badnayn maryaha iyo kabaha iyagana way ka yimaadaan Turkiga waddanka afraad ee ganacsiga ugu faraha badan leh kaalinta afraad ka jira waxa weeyaan waa waddanka Imaaraadka Carabta ama Dubai ay inta badan dadku yiraahdaan marka Dubai waxa ugu badan ee nooga yimaada waxa weeyaan baabuurtan aan wadano ee Yusufka dhamaantood baabuurtaas waxay ka soo degaan waddanka Dubai bay ka yimaadaan intaas waxaan kaga gudbayaa wadamada aynu xeerka ganacsi la leenahay laakiin macnaheedu ma aha Somaliland afarta waddan oo kaliya wax ka galataa ma aha laakiin waxa jira wadamo kale oo fara badan oo alaab inooga timaado oo ka mid tahay waddanka Mareykanka kala alaab inooga yimaada gaar ahaan macaawinooyinka Somaliland yimaado dhan waxay ka yimaadaan Mareykanka ka yimaadaan
ganacsiga qaar ka mida way ka yimaadaan oo gaadiid iyo alaabo kala duwan ka yimaadaan inkastoo aanay badnayn yurub markaad u timaado alaabo fara badan baa iyagana ka yimaada sida tusaalahaan caanahan dee aynu isticmaalno ee daasadaha qaar ka mida laga keenaa dawooyinka qaar ka mida ka yimaada waxaa kaloo ay wax ka yimaadaan waddamada sida tusaalehaan maleeshiya oo kale oo maleeshiya waxaa ka timaada saliidan cuntada lagu korsado la idhaahdo palm oilta la idhaahdo palm oilka waa taqaanaa marka cuntooyinka inta badan laba saliidood baan isticmaalaa mid waxaa sunflower baa la idhahdaa midna waxaa la idhahdaa palm oil baa la idhahdaa marka palm oilshu waxay ka timaadaa maleeshiya ka timaadaa sunflowertuna turkiya ka timaadaa iyadu marka waddanka tusaale ahaan marka la eego masar oo kale vegetableska ayaa ka yimaada inta badan iyadana tufaaxa liin macaanta waxyaabahaasaa ka yimaada marka qaarkood toon basal waxaasaa laga keenaa waddanka sacuudi arabiya sidoo kale isagana dee timirta iyo sharaabyada la isticmaalo qaar ka mid ah ayaa ka yimaada marka intaa waxaan kaga baxayaa oo fiyo guud ah ganacsiga somalilan waddamadee buu ku xidhan yahay marka in ganacsada somalilan iyo mataqaanaa ganacsatada caalamka isku xidhmaana cidda mataqaanaa fududaynaysa waxa weeyaan waa shibanlankayga wey sidaan u fududaynaa waxaan u fududaynaa waxa weeyaan markaad tusaale ahaan alaab ka dalbato hindiya ama aad ka dalbato china ama turki ama imaaraadka waxaad u baahan tahay alaabtaadii cid halkaa kaaga soo qaata oo si yaroo simbala kugu keenta maxay magaalada berbera shaqadaa cidda qabata ee u xil saaran waa annaka wey marka hore laakiin waxaa muhiima procedureka shaqadu qaabku u dhaca waxa weeyaan kolley haddaan saa si detaila uga sheekeeya dee maalmay qaadanaysaa shaqadaynu qabano laakiin waxaan doonayaa sida ugu kooban ee wax loo fahmi karo ee waqtiyada naga baxayn inaan u sheegno procedurku wuxuu ka bilaabmaa marka hore labada ganacsato ayaa marka hore heshiiya oo wax kala iibsada tusaale ahaan nin ganacsato reer somalilan ah ayaa wuxuu alaab ka iibsanayaa nin ganacsadaayo hindiya jooga ama turki jooga ama jiina jooga ama dubay jooga inta badanna transactionka iibku wuxuu u dhacaa qaab qoraal ah marka qaab qoraala markaan leeyahay waxaan u jeeda waxa weeyaan ganacsiga hadda dee anigoon ku dhex jirno ganacsi af ku shaqeeya maaha mar walba ganacsiga waxaa u lafdhabara qoraal sababtuna waxa weeyaan haddii uu muran yimaado oo adigii shipping companyga labta ku soo qaaday aad murantaan ama adigii qofkii kaleeda xibsateen aad murantaan cidda aad hawshiina u geysaan ama maxkamad ha noqoto ama cid kale ha noqoto waxaa mar walba laidin weydiin doonaa wax qoraala maxaa haysaan wax qoraala maxaa haysaan marka haddii wax qorini jiro si yaroo fudud baa loo kala baxaya qoraalkuna waxaa ugu badan la isticmaalaa warqad official loo qorayo la seexayo la shaambaday imika aad looma isticmaalo waxaa aad loo isticmaalaa emailaa la isticmaalaa markaad doonayso ganacsigan aanu ku jirno inaad qayb ka noqoto soo gasho waxaa lagaga baahan yahay inaad email yeelato telefoonna aad yeelato address iyo meel lagugu soo hagana aad yeelato waa laga maarmaan marka laga yimaado liisanka wasaaradda ganacsiga waxaa marka laga yimaado marka emailkaas wuxuu kuu fudaydinayaa inaad ganacsatada caalamka aad kula xidhiidhi karto ka hindiya jooga haddaad maanta o dhan telefoon kula hadasho kuma aaminayo wuxuu ka odhanayaa email soo qor marka emailkii waa inaad markaa aad leedahay isla markaana emailkii aad qori kartaa waxa ugu badan ee lagu wada xidhaano waxa weeyaan waa english wey ama waa luqadda ingiriisiga wey marka haddaad englishka ku fiican tahayna waa filah alxamdu haddii englishka aydan isku fiicnayna waxaad daruuri noqonaysaa qof luqadda yaqaano ku caawiya inaad shaqaalaha ku darsato oo uu kaa mid noqdo marka emailkaas wuxuu kaa caawinayaa markaa adiga iyo qofkii alaabta kala iibsanaysay inaad heshiisyadiinni iyo wadahadalkiinni oo dhan bartaa ku dhamaysataan markaad dalabka markaad dalbanayso email baa u diraysa marka hore telefoon baa la isku helay marka telefoonka la isku helo waxaa ku xiga waxa in emailada la kala qorto isna inuu emailkiisa ku siiyo adna waa inaad emailkaaga aad siiso intaas markay dhacdo waa inaad markaa xidhiidhka adigu bilowdaa dalabkii aad samaysay isaguna inuu qofkii wax ka iibsanaysay ku soo jawaabo wax kala iibsiga markay heshiisaana meel isla dhigtaan oo dee alaabta la kala iibsanayo lacagta qaabka loo kala qaado waxa dhan markaa dhamaysaan ayaa waxaad la xidhiidhaysaa shibinkii shaqadii shibinkaa bilaabaysa markaa waxaana ku bilaabaysaa markaa
shipping link inaad la xidhiidho oo xafiiska berber inta badan shipping laynada xafiisyada mainka waxay ku yaalaan berbere ku yaalaan laakiin xafiisyo commercial ah waxay ku leeyihiin magaalada Hargeysa laakiin Burco iyo Booram iyo dhulka weli may gaadhin shippingku sababtuna waxa weeyaan berbere waxa mainka looga dhigo waxa shaqada ugu badan ee shipping laynadu berbere ka socota Hargeysana waxa looga dhigo xafiisyada labaad ee shippingku waxa weeyaan had iyo jeer ale cidda go'aanka ganacsiga ka go Soomaaliland waxa wada joogan Hargeysa joogan marka laakiin gobolada kale waxa yaal inta badan u badan yihiin branches bay u badan yihiin marka kontaagyadeena waanu dhisinay markii alaab ay diyaar idin noqoto xafiisyada la soo xiriiri doontaan insha Allah qaabkaad ugu soo xiriiraysaana waxa weeyaan ugu fiican waa inaad qoraal soo qorto oo email soo qortaa emailka aad soo qorayso waa email aad ku codsanayso aad ku sheegayso in alaabi ku taalo meel heblaayo iyo inaad u baahan tahay alaabta meel heblaayo taalo in lagu soo qaado berbere lagu keeno marka qoraalka marka la soo qoraayo waxaan u baahanahay qoraal nuxura in la soo qoro oo la fahmi karo waxa macluumaadka laga baahan yahay wax yar oo kooban weey kow waxa laga rabaa emailkan aad ku soo cadeyso dekada aad rabto alaabtaada in laga soo qaado tusaale ahaan taado mundaran raba in wax laga soo qaado marka dekada inta badan wax laga soo rooxa la dhahaa port of load baa la dhahaa af Ingiriisiga marka haddii Ingiriisigu yara dhib noqdo Soomaaliya ku soo qoran kartaa marka xafiisyada localka Soomaaliland aad la tacaamulayso laakiin kuwa dunida hadda la tacaamulayso Ingiriisi waa daruuri weey dekada laga soo reey markaad magaceeda sheegto waxa laga rabaa in emailka ku soo xusto dekada alaabta la rabay in lagu geeyo waxaana la yiraahdaa port of discharge inaad ku soo qorto emailkaaga dekada rabto in lagu keeno meel heblaa laga soo qaaday meel heblaa la keenay soo kala waa inaad sheegtaa wax la yiraahdo cargo description waa inaad sheegtaa cargo description macnaheedu wuxuu noqonayaa faahfaahinta alaabta la rabo inaad rabto in lagu soo qaado faahfaahinta alaabta rabto in lagu soo qaadana waxay keensanaysaa in la ogaado alaabtan aad soo rabto inaad soo rarto waddanka sharciyan horta ma laga ogolyahay mise lagama ogola haddaad igu tiraahdo khamri baan rabaa inaan soo raro is sheegto waxaan leeyahay khamrigu Soomaaliland waa prohibited looma qaadi karo khamri haddaad hilib doofaar ii sheegtana waxaan ku leeyahay hilib doofaarna lagama ogola laakiin waxaa laga yaabaa waddamo kale in alaabta laga ogolyahay u dhoofi karto soo maaha laakiin anaa sheegay waxaan ku leeyahay Soomaaliland lagama ogola haddaad taa hub baan raraya hub military baan raraya waxaan ku weydiinayaa dawladda ogolaansho ma ka haysaa warqad ogolaanshaha oo lagu ogolaaday hubka inaad waddanka soo gelin karto qoraal baan ayin kaa raba si roof kaaga aqbali maayo haddii alaabahan mamnuuc ahayn waddanka inay soo galaan ay tahayna oo alaab caadi ay tahay waxaan doonayaa inaan ogaado containerka ku habboon alaabta lagu soo qaadi karo for example haddaad soo qaadayso tusaale khudaar oo kale waxaad rabtaa inaad soo qaado liin macaan ama basal ama tan waxaas rabtaa inaad soo qaado dee containerka basashii khudaarta loogu talagalay la mid maaha containerka loogu talagalay in dawooyin iyo waxa lagu soo containerka loogu talagalay basti brisin lagu soo guro la mid noqon maayo oo inta badan khudaarta iyo dawooyinka waxa lagu soo qaadaa container qaboojiyaalaha lagu soo qaadaa river container waa container talaagada lagu siinaya marka waxaan ku leenahay alaabtan dare container dad ku soo qaado alaabta ka xumaanaysa container river aad u baahan tahay river alaabtaada ku qaado haddii alaabtu ay tahay alaab aad u culus waxa la soo rarayaa cagafyo iyo gaadiid waaweyn haddii yihiin iyaguna xilliga container khaas oo loogu talagalay marka sababtaan u codsanayno in alaabta nooceeda aan ogaano waxa weeyaan arrimahaas ka mid ah sidoo kale waxaa muhiim ah emailka inaad ku soo xusto containerka alaabtaada ku habboon inaad u soo sheegto ma container dryaba ma river ba ma noocyada containers ku fara badan yihiin google-ka ku qori doontaan container type ku qori doontaan inta nooc ee containers wax lagu soo qaado noocyada google-ka ka heli doontaan insha Allah container markaad intaas soo sheegto ayaan waxaan kugu soo jawaabayaa email baan kugu soo jawaabaya oo waxaan ku soo sheegayaa qiimihii waxaan leeyahay containerka aan ka soo qaadayo Mundara dekada Mundara oo ku taala Hindiya oo berbere ku keenay waxaan ka qaadayaa $1,500 baan ku leeyahay
marka $1,500 waxaan leeyahay soo confirm garee hadda waa inay soo joogtaa taahdaa qiimaha waan aqbalay acceptance waa inaad keentaa contract waad garanaysaa soo maaha marka heshiis la gelayo heshiiska wuxuu ka bilaabmaa dalab in la keeno ciddii dalabka offerka la siiyey waa inay acceptance keento marka offer and acceptance la helo ayuu heshiisku dhamaystirmaa soo maaha marka confirm aa soo tiraahdo macnaa heshiiskan kuu soo jeediyay waad aqbashay wey marka intaasi dhacdo waxaan ku weydiinayaa xafiiska meesha alaabta taala adreskeeda marka adreska aad ii sheegto adiga mas-uuliyaddu way kaa wareegtay alaabtii baan halkii ugu tegayaa alaabtii sidii baan kusoo qaadaya alaabta marka la soo qaado ama marka qiimahaynu ku heshina baan idhaahna in qiimaha dhammaystirno waxaan kuu sameynaya waxa la dhahdaa booking diyaarada adinka arko qof markuu diyaaradda raacayo booking buu goostaa soo maaha bookingkii alaabtaadu ay ku raacaysay marka waan kuu sameynaya markaan bookinga kuu sameeyo ninkii waan ka receive gareeyey ninkaa alaabta aad ka iibsatay waxa kaaga xidhmi doona waxa la idhaahdo original bill of lading marka original bill of ladingku waxa weeyaan waa warqadda lahaanshaha alaabtan iminka aan soo qaaday waxa iskale ciddaan ka soo qaaday markaan shiminka nahay anagu alaabta markaan soo qaadana alaabta waxaan u aqoonsanahay ciddii aan ka soo qaadnay in alaabta ay leedahay adiga deedna goormaad alaabta yeelanaysaa alaabta waxaad yeelanaysaa oo shiminka xaq ugu yeelanaysaa alaabta lahaansheedu kugu soo wareegaysaa markaad ninkan alaabta aad ka iibsatay aad lacagtiisa u dhammaystirto ee 100% aad siiso isla markaana isaguna ku soo siiyo warqaddii lahaanshaha alaabta hadhow alaabtu deedna markay timaado berbera waxaa laga yaabaa alaabtu inay soo socoto bil 40 cisho 15 cisho 20 cisho wadamadu masaafo kala duwan bay u jiraan dekedina berbera marka isku waqti kuma imanayaan si wadamadu ugu soo kala dhow yihiin berbera ayay alaabtuna soo kala horeynaysa oo bilmatal alaabta Dubai ka imanaysa way ka soo degdeg badan alaabta China ka imanaysa sababtuna waxa weeye Dubai ugu dhowdahay berbera marka la barbardhigo maxay China marka la barbardhigo marka bisha ay alaabta soo socoto say for example cilisaan alaabta waxay soo soconaysaa bil bisha ay alaabta soo socoto hawlo badan baa adiga ku sugaya hawlaha ku sugaya waxa weeyaan ninkii aad alaabta ka iibsatay inaad lacagtiisa u diyaariso oo lacagtiisa u xawisho oo lacagtiisa aad siiso lacagtiisa markaad siiso isaguna wuxuu ku siinayaa maxay warqaddii lahaanshaha alaabta ayuu ku siinayaa isaguna arrinta kale muhiimka waxa weeyaan aan doonayno inaan halkan ka xusnaa waxa weeyaan markii alaabtu halkan ay timaado xafiiskaygii baad imanaysaa berbera waxaad leedahay alaabtii nooca ay taallay isiiya waxaa lagu leeyahay warqadaadii lahaanshaha alaabta caddaynaysa aad lahayd keenaya ninkii ku soo siiyey warqaddii baad keenaysaa dadna alaabtaa lagu siinaya warqadaana inta badan waxaa la isugu diraa DHL baa la isugu diraa marna fasaxaad baa laga dhigaayo warqadda lahaanshaha waxa la geeyaa xafiiskii shippingkii halka alaabta kasoo raraa la geeyaa isaga email soo dira oo idhaahdo originalka halkan aan ku hayaa customerka alaabta siiya marka taana fasaxaad baa la idhaahdaa marka labadaa hab kolba kii qofku ka shaqeeya soo dhammaystirtaa ayaa halkan alaabta lagu siiya halkan markay alaabta timaado ee xafiiska timaado ee waraqahaagu ay sax noqdaan waxa waa dhammaystirmaan xafiiska shippingku wuxuu ku siinayaa warqad la idhaahdo delivery order marka kolley ciidanka reer Bride ku jiro kolley si fiican u fahmaydin sharxi doona delivery order ka waxa la dhahdaa waa warqadda lahaanshaha alaabta shipping line waxay ku cadeynayaan inaad adigu alaabtan aad leedahay marka tahay faarax qabiil geed marka tahay inaad alaabtan adigu leedahay warqaddaas cadeynaysa warqadda markaad qaadato ayaa alaabtaadii dekada taalay dekadu ku aqoonsanaysa in adigu aad leedahay customkuna ku aqoonsanaya in adigu alaabtii leedahay haddii shippingkan warqadda ka haysanin custom wax ku cashuuraya ma jiro dekad ku shaqeynaysaana ma jirto waxa lagu leeyahay marka hore shippingka ku soo hore maadaama isagoo alaabta ku soo qaaday hana soo cadeeya alaabta in aad leedahay hadii jeerana dadku ma fahansana shipping line-ka iyo dekada iyo customka waa saddex hay'adood oo kala madax bannaan waa dekadii waa customkii waa shippingkii annagu markaanu shippingka nahay iyo dekada markaanu xeerka naga dhaxeeya waxa weeye dekadii shippingka maxaa ka dhaxeeya waxa ka dhaxeeya waxa weeye waa xeerka ka dhaxeeya ninka bakhaarka iska leh iyo nin alaab dhigtay xeerka ka dhaxeeyo kala ka dhaxeeya
macnaheeduna waxaan uga jeedaa waxa weeyaan haddaan iminka dekeda ku dejiyo 5,000 oo container company uu dekeda dhex dhigo 5,000 ee container cidda loo hayaa waa xafiiska shipping weyn waxaana laga yaabaa 5,000 intiina ku kala qorantiin kanaa ku qoran kanaa ku qoran kanaa ku qoran kanaa ku qoran dekedu laakiin dadka waxba idima hayso cidda wuxuu haysaa waayo waa shipping kastamkuna adiga xoolo kuma hayo laakiin anigu alaabahan hayo yaan aniguna iyo waxu haya daadan wax ku hayada ilo xidhibtay adiga dekada waxba kuma hayso kastamka waxba kuma hayo haddaad intaa dhaafto kastamka u tagto kastamka waxba kuma soo siinayo wuxuu ku odhanayaa inaad wax leedahay orada xafiiska ka soo cadaysade yaa amaanada ku hayay da xafiiskaasaa container soo qaaday oo caynka orada xafiiska ka soo cadayso waxa xafiiskaadu haysa uu ku hayay xafiiskaas markaas anagu cadaynta sameeyna waxaanu nahay marka dekada laga hadlayo iyo kastamka marka laga hadlayo shipping lines waxa weeyaan waa the first customer baa la dhahaa waa macmiilka koowaad bacna alaabaha meesha yimaado shippingka loo haya dadkeenuna halkaa ma fahansana oo qofku markaa dekada alaab ku talo waxa inuu dekada toos uga xaroodaba laakiin waa inay fahantaan idinku maadaama ganacsi soo gasheen in shipping linesku ay yihiin halka ay wax ka bilaabmaan hadday noqoto alaabta soo qaadisteeda iyo hadday noqoto cadaynta lahaanshaha alaabta warqadda lahaanshaha markaan ku siiyo waxay u sheegaysaa warqadadaasi dekeda iyo kastamkaba alaabtaa laga hayo inaan macmiilkaa sigiy oo isagu leeyahay markaasi dekeda kuu shaqaynaysaa containerkaagii lagu soo dhigayaa adeegii dekeda lagaa qaadaya kastamku markaasuu wax ku cashuuraya qaybtaa cashuurista iyo custom processka waxaan u daynayaa qolada clearance and forwarding kaan u daynaya anagoo shippingka markaan nahay shaqadeedu intaasay ku eg tahay waxaa laakiin intaasun raaca alaabta marka dekeda aad kala baxayso laba haboon baa lagala baxaa inaad alaabtaadii intaad konteerada ka gurato aad gaari saarayso ood saa kula baxayso iyo inay alaabtu tahay alaabta jabaysa u baahan tahay konteer ku qaadato marka konteerkii inaad alaabta ku qaadato ogolaanshaheedii iyo diidmadeedii annaga nagu xidhan tahay because of konteerka dekeda yaalla annagaa leh konteerka dekeda yaalla dekedu ma laha kastamkuna ma laha cidda ka xaqlaha konteerku waa annagaad nala dhilgaranaysa annaguna customerska markaanu konteerada siinayno laba hab baan u siinaa inta badan laba hab ayaan u siinaa habka kood waxa weeyaan qofka inaan warqad damaanada ka qorno oo nidhaahno warqad damaanada soo qor iyo inaan ka qaadno lacag deposita damaanada waxaanu ka qornaa qofka bis ku cusub aan hore noogu iman jirin aanan garanaynin oo haddii la idhaahdo qofkii konteerka hadduu dhaco burburo ama konteerkii la waayo ama wax dhacaan qofkii hadduu yahay qof meel aan u raacnaba aanan garanin hadduu noqdo lacagta qiimaha konteerkan ka qaadnaa qofka hadduu yahay qof dhowr jeerna soo rartay oo ganacsigiisana la yaqaano oo maalin walba alaabna soo rarto oo nala tacaamul hadduu yahay oo xidh fiican naga dhexeeyana ma dhibno waxaan nahaa warqadda soo qor warqadda soo qor baan idhaahna marka nidaamka containerska aan ku bixinaa waa saas hadduu markaa noqdo dadka warqadaha laga qaadana warqadaanu ka qaadnaayo warqadahaasaan alaabta ku siinaa hadduu noqdo customerskiina la shaqayn jirayna waxaan jeedaa customer nagu cusub hadduu noqdona lacagta damaanadan ka qaadno laakiin insha allah hadday suurto gasho idinka waxaan idinka codsanayna maadaama dhalinyaro aad tihiin oo magaranaysaa dowladdiina ay dhiiri gelinayso annagana inaynu dhiirigelintaa qayb ka qaadanaynu doonayna waxaan doonaynaa intiinan ganacsi liiskooda in lanoo soo gudbiyo insha allah idinku maanta ugu horta wax soo rartaan warqaddaan idinka idinka qaadan ganacsi cusub idin tixgelin mayna insha allah waxaananu doonaynaa intaa inaanu dee dhiirigelinta iyo garab istaaga dhalinyarada aan ka dhigno waxaa kaloo aanu damaanad qaadaynaa oo aanu halkan idinka deeqana waxa weeyaan macluumaad yaroo kooban baanu idin siinay ciddii chance heshaa u baahata inaan siin karno macluumaad intan ka faahfaahsan intaasi waxa weeyaan waa processka ganacsiga siduu u shaqaynayo hal kelmadoo dardaaran un baan ku darayaa oo khibradda ganacsiga ah halka arrin waxa weeye sidiisaba businessku waxa weeyaan waa riski weyn waa riski macnaheedu waxaan jeclahay haddaad ganacsi bilowdo inaad faa'iidi doonto inaad khasaari doonto cidina ma oga laakiin haddana khasaaraha ka imina businesska mar walba waxa ka badan faa'iidada laga helayo waxaad kula dardaarmayaa waxa weeye oo kelmaddeeda dardaaranku ay noqonaysaa sanad businesska bilaabistiisu si inankii halkan ka hadlaya uu sheegay bilaabistu way adagta
markaa maadaama bilaabistu adag tahay waa in lagu dhiiradaa adayga iyo dhibta aad la kulmaysana aad u sabirtaa qodobka labaad aan raacinaya waxa weeye sanadka ugu horeeya biska inta badan faa'iido lagama filo bisku markuu cusub maanta bis cusub aad bilowdo ha sugin markiiba inaad faa'iido soo saarto faa'iido waxay u baahan tahay waqti iyo time markaa sanadka ugu horeeya waxaa la doonayaa haddii sanadka horeba aad faa'iido hesho maanta ugu horeysa aad faa'iido falilahi alxamdu oo waataynu rabnay weeye laakiin businesska waa inaad ogaataa wuxuu u baahan yahay sabir iyo dhabar adeeg buu u baahan yahay sanadka ugu horeeya businesska faa'iido lagama sugo businesska wuxuu hirgalaa oo uu faa'iido soo saaraa oo uu dhaqaaqaa sanadka labaad inta badan sanadka hore wuxuu waqtigu kaga dhacaa businesska inaad ganacsigii qofku fahmo inuu xidhiidh samaysato bis partners aad yeelato waxaas waqtigu kaaga lumaya marka waxaan idinkula dardaarmayaa waxa weeye sanadka ugu horeysa haddaad faa'iido aad weydaan ha niyad jabina ganacsigina ha ka yaacina laakiin u sabra u dhawar adayga ogaada sanadka labaad insha allahu inaad faa'iidihii guul gaadhis doontaan qodob kalean idin raacinaya waxa weeyaan haddii aad mar guul daraysataba iyadana ha niyad jabin haddaad guul daraysato macnaheedu waxa weye waad khasaartay maaha ee waxaad ogaataa inaad baratay hab aanu ganacsigu u shaqaynin oo habkii hore bedelo hab cusub bilow deedna ganacsiga duuba bilow tusaale yaroo kooban baan kusoo gabagabaynayaa siinayaa groupka iminka aad arkaysaan ee maanta inoo iftiimaya aynu isticmaalayno waxaa la tilmaamaa ninkii groupka hindisay inuu groupkaa shido wuxuu isku dayey baa la yidhi 999 jeer ayuu isku dayey 1000 midla ayuu isku dayey inuu groupkaa shido mar walba shid buu is idhaahdaa wuu ku feelgaroobayay mar walba shid buu is idhaahdaa wuu ku feelgaroobayay wuxuu groupkii shiday markii kumaad buu shiday markii kumaad buu groupkii shiday halhays cajaa'ibna uu ka tago wuxuu yidhi waxaan bartay maan guuldaraysan 999 jeer maan guuldaraysanine waxaan bartay 999 hab oo aanu groupkaasi u baxaynin iyo sidoo kale waxaan bartay hal hab oo groupkaasi uu ku baxayo finallyna guul buu gaadhay waxaan idiin ballan qaadayaa khibraddeeda ganacsi markaan idinla sheer gareeyo haddii aanad ganacsiga ka daalin inaad guul ka gaadhayso laakiin waxaa laaga baahan yahay sabir iyo adkaysi iyo dhabar adeeg mar kastood guul daraysato hadday dhacdaba ha ka niyad jabin haddana wax kale isku day habkii hore aad ku guul daraysatay wax ka bedel marka dambe waxaad helaysaa waddada saxda ee wax ku dhaqaaqayaan marka hadalkii waan badiyey intaasaan kusoo koobaya raalli ahaada asalaamu calaykum aad bay ugu mahadsan yihiin waxaa la weydiiyey ma container buuxun baa idinku qaadaan ubedde su-aasha nuxurkeeda kusoo ururaysaa haddaad container buuxaa qaadaanna intee qaadaan marka sida guddoomiyadiin hadlaya uu sheegay magaciisa gara baxsadee maxaa magaciisa cabdiraxmaan moomin cabdiraxmaan iyo xamdisay su-aasha inoo weydiiyeen konteenarada marka lasoo raraayo laba hab baa loo soo raraa mid waxaa la idhaahdaa waa full loaded container baa la idhahdaa full loaded container marka inta badan waxaa la idhahdaa waa FLC taasina waxa weeyaan waa marka container buuxa lasoo raraayo marka customerkii container buuxin karaya containerka buuxin karaya laga kareeyaa la siiyaa qiimihiisa loo soo raraa containerku muxuu qaadaa marka laga hadlayana si guud containerku si kala duwan yihiin containeradu si u badan yihiin waa laba nooc waa container gaaban oo 20 feet iyo container dheer oo 40 feet marka 40 feet koodi qaarkood gaariga samtarelka dheer containerka la saaro weey ka 40 feet baa la dhahaa midna gaariga yar candhamida la saaray uu ka gaaban yahay waxa la dhahaa 20 feet baa la dhahaa marka 20 feet waxa loogu talagalay alaabta culeyskeedu aad ku badan yahay la saaro soo tusaale ahaan bariiska sonkorta daqiiqda marka containerkaas oo kale wuxuu qaadaa ugu badnaan ilaa 27 ilaa 26 tan ayuu qaadaa marka tankiina wuxuu noqonayaa 1000 kg buu noqonayaa marka adiga xisaabsan doona marka qaadka marka la doonayo intaas containerkaas ku qaadaya wuxuu ku qaadayaa containerka yari ugu badnaan ilaa 27 tan waxaana loogu talagalay alaabta culayska badan leh ee aan cufka lahayn containerkan dheer 40 feet ka isaga maximum ilaa 25 30 tan meelahaas la saaraa isaga
laakiin isaga waxaa loogu talagalay maadaama spacekiisu badan yahay waxaa isaga loogu talagalaa alaabahan culayska lahayn ee laakiin cufka leh sida tusaalahaan maryo oo kale maryuhu culays ma laha laakiin waxay leeyihin cuf badan bay leeyihin waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha electronicska oo kale waxaa ka mid a furnitureka oo kale kuwaasaa lagu soo qaadaa marka taas waxaa kiraysan kara qofkii container buuxa dee awood u leh inuu buuxin karo habka labaadna waxa weeyaan waa hab half container inuu qofku kiraysan karo marka kaana waxaa la idhaahdaa waa less container loaded baa la less container loaded oo macnaheedu yahay LCL oo macnaheedu yahay sida cabdiraxmaan ka hadlayay in qayb partial containerka lagaa kireeyo marka taa laftirkeeduna waa kuu diyaar oo waa lagaa kireynaya laakiin markay noqoto less loaded containerka markay noqoto inta badan shipping line-ka qofkaasi lama tacaamuli karaayo waxaa jira qolo la cargo agents kuwa la baa jira kulley berberana xafiisyo ku leeyihiin cid u baahato waan ku xidhi doonaa dubayna xafiisyo ku leeyihiin china xafiisyo ku leeyihiin turkina xafiisyo ku leeyihiin marka 5 qof oo mataqaanaa container wada buuxin kara ayaa iyaga la xeedhaaya dadna waxay sameynayaan 5 qof inta isku ururiyeen bay alaabtoodii hal container ku soo wada ridayaan hal container ku soo ridaana containerkan ay soo saarayaan marka halkan alaabta timaadana iyaga aniga imanay alaabtiga qaadaya 5 qof bay meesha isugu yeedhayaan qof walba wixiisii bay ku wareejinayaan kharashkana way u qaybinayaan oo containerka waxa la CBM waxa la xisaabiyaa oo nuxurkiisu noqonayo in space-ka container ka qaatay adigu haddii containerku yahay tusaalaan qiimihiisu $2,000 yahay space-ka containerka aad kireysatay 20% qiimaha waxa laga qaadaya 20%. haddaad space-ka containerka qaato 50% waxa laga qaadaya qiimaha noolka 50%. marka xafiiskaas adiga shipping line-ka idin dhaxaynaya alaabtana isaga mas'uuliyadda qaadaya isaga si fiican u soo raraya isaga alaabta aad la dhil garanaysa marka waxaan filayaa su'aasha waan ka jawaab